gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa ku weheliyay kormeerka uu ku tagay goobta lagu qabanayo caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey waxaana ay u kurgalayeen qaabka lagu diyaar garoobay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha inta ay ku sugnaayeen gudoonka golaha shacabka hoolka ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka waxay warbixin ka dhageysteen xubnaha guddiga qabanqaabada munaasabadda oo ah guddi ka kooban wasiiro xildhibaano iyo xogayaha guud ee golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux sidoo kalena waxaa goobtaasi lagu diyaarinayay qaabka masraxiyadda loo soo bandhigayo suugaanta wadaniga ah iyo ciyaaro hidaha iyo dhaqanka ah isla goobta ayna sidoo kale kulan kula qaateen saraakiisha ammaanka iyo guddiga qabanqaabada iyo diyaargarowgeena waa mid heerkiisu sareeyo maalmahan oo dhanna waxaan u shaqaynay si joogto ah ayuu u sheegay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xogayaha guud ee golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux madaxweynaha dooran ee jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa madaxweynihii labaad ee lagu doorto laguna caleemo saaro dalka gudihiisa burburkii kadib waxaana caleemo saarka ka soo qayb geli doona madaxweynayaasha dalalka qaaradda Afrika qaarkood